Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal, kusoo dhawaada waa janalka iyo page-ka How to Somali oo aad ugu barateen tutorial and teacher. Maanta cashirkeena wuxuu ku saabsanaan doonaa sidee shashadaada laba barnaamij ugu isticmaali kartaa, macnaha ayadoo Facebook ku furan yahay, YouTube ne sidee wax uga daawo kartaa, ama adigoo WhatsApp ku furan yahay oo qof la sheekaysaa sidee wax u daawo kartaa. Waa bilaabeynaa. Ugu horeyn hadda meesha markaa fiiriso wax application iyo ma kacsano, waxaa soo kacsanayaa application koowaad aan rabo inuu shaashadeeda iga soo muuqdo sida Facebook oo kale. Fiiri, masalan Facebook oo kale ayaan soo galay. Facebook markaa soo gasho waa kicsi oo ka noqonaysaa. Midka kale ee aan rabana waa YouTube. YouTube waan soo kicinayaa, waad ka noqonaysaa isagana. Markuu kuu soo kaco ka noqonaysaa, waxaad tegaysaa saddexdaas falaarood. Markaa ku dhufato YouTube-ka link calaamadiisaas koraa ku dhufanaysaa. waxaa leedahay open split screen view, qaybtaas kaas kor ku jooga YouTube mujeda. asagana Facebook aa ku dooranaysaa, waxaa ku dhufanaysaa masalan. Fiiri, hadduu kaaga soo baxo mujeda YouTube-kii waa soo galaysaa. Fiir marka xagga YouTube aa iga daaran. intana Facebook ayaan ka isticmaalayaa, notification-ka ayaan ka ogaanayaa, waxyaabahaas dhanaa kala soconaya. intana YouTube-ka ayaan ka daaranayaa. Fiiri, YouTube-ka ayaan ka daawanayaa. soo ujeedaan soo maahan, waa isla daawan kartaa. halkaas hadda fiidiyogaas ii daaran ujeedaa, weliba si high ah. intan fiiri, intan fiiri, video aan raadinaynaa ama watch kadee gal bis, watch kale gal bis wuu ku socdaa. sidaas ayaa u fiirsanaysaa ujeedaa. kaas labadooda waa daawanaysaa. cashirkeena intaas ku egaay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.